dalka Switzerland ayaa dal ay tagaan dadka doonaya caalamka nafta inay isdhaafiyaan waxana wadankan sharciga in qofka nafsadiisa uu goyn karo waliba isaga oo laga caawinayo qaabka uu doonayo waxana wadankan gaara sanad kasta kumanaan kun oo qof kuwaasi oo doonaya inay isdilaan qodobka 115 ee dastuurka dalka Switzerland ayaa dhigaya in qofka go'aansaday in nafsadiisa uu dilo laga caawin karo hay'adda Dignities ay qaabilsan caawinta iyo qaabka ugu sahlan ee qofku nafsadiisa u goyn karo iyadoo oo talo iyo tusaale ka siinaysa qaabka ugu fudud ee uu nafsadiisa u goyn karo halku dhiga hay'adda Dignities ayaa ah sharaf ku noolow ama sharaf isku sanadkii la soo dhaafay ee 2015 waxa isku dilay dalkaasi Switzerland dad gaaraya 1,000 qof kuwaas oo laga caawiyay qaabka ay isku dili laayeen sanadkii tagay ee 2018 dadka isdilay waxa kamid ahaa saynisyahankii u dhashay dalkaasi Australia ee David Goodall kaasi oo safar dheer u galay sidii uu isku dili lahaa saynisyahankan u dhashay dalkaasi Australia oo daadiisu tahay 104 sano jir ayaa sheegay in dawladdiisu ay u diiday inay ka caawiso inuu isdilo wuxuuna sheegay xanuun jir ahaaneed inuusan haysan balse tayada noloshiisu ay aad u xumaatay oo uu doonayo inuu dhinto waxaan ku faraxsanahay inaan fursad u helo bari si aan u dhameeyo noloshayda waxay ii noqon lahayd mid aad u fiican haddii aan awoodi lahaa inaan isdilo marar badan waan isku dayay laakiin ma aysan ii hirgelin tani waa mid ka mid ah heesaha aan ugu jecelahay ayuu yiri David Goodall Friday schöner Götterfunken doch dir auf Elysium